kulankan isugu yimaadeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa waxaa looga soo horjeeday kulan ay shalay ku yeesheen qaar ka mid ah golaha wasiirada magaalada Muqdisho kaasi oo ahaa in guddi loo saaray dagaalkii ka dhacay deegaanka Deefow. markii uu soo ilaaday kulanka ayaa waxaa qodobadii ka soo baxay warbaahinta u akhriyay mid ka mid ah waxgaradkii meesha ku sugnaa. afka beesha xawaadle ee gobolka Hiiraan waxaan u sheegaynaa beesha caalamka qaramada midoobay dawladda Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inuu yahay dhulka laga horinayo xabadda iyo colaadda uu yahay dhul hawiye iyo beesha jareer weyn dhulkaas oo ka wadaan dagaal nimanka la yiraahdo ubbo shabaab iyo dad danaqaas leh oo ka mid yihiin xukuumadda federaalka dad ku jiro wasiiro isku sheegay ay ku jiraan waxaan dawladda Soomaaliya u sheegaynaa nimanka shalay shirka ka abaabulay xamar ee khilaafka iyo kala fogaanshaha Soomaaliyeed ka shaqeynaya inay xabaddu ka horto meesha la yiraahdo kabxan leeyahay Deefow waa dad danaqaas leh waa dadkii dagaalka ka wada labada sano ka waday xabadda ka wada waay Soomaaliland ku jirto shabaab ku jiro ubba ku jirto dad siyaasada gooniye wato oo dhul gooba oo federaalkii Soomaaliya lagu dastuurka lagu soo daray dhul ku goobay ayaa kamid ah dawladda Soomaaliya ka fiirsato mana ima karaan Hiiraan mana ku soo dii karaan wax nabadayna kama qaban karaan dawladda Soomaaliya hadii noo soo dirtan ayda talaabtaas ayda iskala waxaan ka qaadno waxaan kala sheegaynaa nimanka la yiraahdo dastuurka Soomaaliya waxa ku qoran federalismka dawladda Soomaaliya intay ka fariisatay si sax wax u qaybis sida loo qaybiyo mudug ay u qaybiyeen nimanka xukuumadda ka tirsan ee tagay waftiga u qaybiyeen si sax ma waxa sax sidii hore loogu qaybiyay gobolka mudug waxaan kala sheegaynaa nimanka la yiraahdo meeshan xuduudkan Itoobiya iyo Soomaaliya dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya diris waxaan ka nahay feer Itoobiya meesha ubbo iyo shabaab iyo dad danaqaas laha wax ka horna waa inay fiiro gaar u yeelato dawladda Itoobiya shirkii shalay dhacay ilka xanaf iyo nimanka wasiirada ah wasiirka tacliinta sare ay ku jiraan waxaan u sheegaynaa inay Soomaaliya waxay ka dhaxorinayaan ay ka joojiyaan dawladda federaalka ay ka fiirsato gabadha wasiirada ee reer Hiiraan ee hawiye ee ka horinaysa xabadda inay dad reer Hiiraan ay xabad ay dagaalamaan horinaysana si qaas afartu ugu taagayna dhulka Hiiraan waa muqaddis lama taabtaan waa hawiye taladiisuna waxay ka go'daa hawiye beesha jareer weyn. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha ku sugnaa kulanka ayaa iyagana ka hadlay waxayna ka warbixiyeen ujeedka kulanka loo qabtay shirkan jaraa'id lagu qabtay gobolka Hiiraan magaalada madaxdiisa Beledweyne lagu qabtay waxa uu ku saabsan yahay waxyaalaha lagu qabanayo xamar iyo waxyaalaha lagu qabanayo Hiiraan lagu soo weerarayo waxa loo kulay dad dana gaara leh wasiiro leh xildhibaano leh mas'uuliin leh arrintaas si aad u falaqaynaya waa tashanana waana tashadoona hadii Allah ay waxaan u horeynaa sida ragiga horeey u yiriba dadka dawladda federaalka adeecay ciidamada u keenay ciidamada ugu badan ee gobolada Soomaaliya laga qoray Hiiraan ugu badan ciidamadii markii hore loo waday hal yiri gadaal laga weeraro taas waan iska celinaynaa waana diyaarana dadka wasiirada lagu sheegayo oo mugdiga ku shiraya oo laababka fariisanaya oo anagu naqaano oo qaar walaalkood ku dhintay oo qaar wax dheefkoodii la keenay oo asal ku ah dadka meesha jooga oo loo soo dirayo oo shabaab soo dumaya oo umba soo dumaya oo wixii xajoon isku keena waxaan leenahay ha ka baxeeno shaqada muu suura galiideen. dhanka kale waxa ayna sheegeen in garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne aysan u oggolaa dooneen cid ayaga ka soo horjeeda waxa ayna tibaaxeen in garoonka gebi ahaanba ay xiri doonaan ragii iga horeeyaan ku ayeysanahay meel miyay maraalay miro xabbo kuma tarto airportka Hiiraan waa xiriya wax ka soo deey karna male dawladda intaas aan sheegaynaa warkayna intaas oo leeyahay gobolka Hiiraan garoonkiisu waa xiran yahay cagaha gobolka Hiiraan qofaan u dhalanna ma soo dhigi karo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. tani markii uu bilowday dagaalka Deefow ayaa waxa jiro dadaalo lagu doonayo in lagu xalliyo walow aysan u suurtagelin in lagu guuleysto xalinta labada beelood.